الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan ku soo guda jirnay acmaashii xajka iyo umrada qaybtan afaraad iyo qaybta shanaad ee ka dambayso waa labada qaybood ee ugu muhiimsan duruusta aan ugu talagalnay xajka iyo umrada. qaybtan afaraad waxaan ku eegi doonaa qaabka qofka uu umraysanayo, qaybta shanaadna waxaan ku eegaynaa qaabka uu qofka u xajinayo. qaabka uu qofka u umraysanayo qofka markii uu soo gaaro goobaha laga xirto xajka iyo umrada oo mawaaqiid makaaniya hore aan uga soo hadalnay. markuu soo gaaro qofku uu qubaysanaya sida qubayska janaabada oo kale hadii ay u sahlanaado qubaysku waa sunno ka sugnaatay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. qofka markii uu qubaysto wuxuu xiranayaa dharkii uu ku xiranayay. ragga ayaa qaadanayo dharkii xirashada, haweenkana waxay qaadanayaan dharka ay doonaan, balse waa inay ahaadaan dhar jirka asturaya oo qurux aan muujinaynin. qofka uu xiranaya umrada uu niyeysanayaa, wuuna ku dhawaaqayaa labbayka umra ayuu dhahayaa. kadib qofka markii uu soo gaaro Mako wuxuu dawaafayaa Kacbada hareeraheeda 7 jeer. wuxuu ka bilaabayaa Xajarul Aswadka, asaga ayuuna ku soo gabagabeynayaa wareega. qofka markii uu dawaafo uu soo baxayaa 2 rakacadood ayuu ku tukanayaa maqaamu Ibraahim gadaashiis ayuu ku tukanayaa hadii ay u fududaato meesha ciriiri aysan ahayn. hadii ciriiri ay tahay meel kamid ah masjidka ayuu ku tukanayaa. qofka markii uu 2 rakacadood tukado uu soo baxayaa, wuxuu soo aadayaa Safa iyo Marwa. buurta Safa ayuu ka bilaabayaa orodka 7 jeer ayuu ku wareegayaa. wuxuu ka bilaabayaa Safa, wuxuu ku soo gabagabeynayaa Marwo. qofka 2 tiir oo cagaaran markii uu soo gaaro intaas ayuu rucleynayaa, inta kalena waa uu soconayaa orodka. markii orodka uu soo dhameysto qofka madax ay iska xiirayaan ragga ama waa ay gaabsan karaan. haweenkana qayb kamid ah tintooda ayay wax yar jarayaan. sidaas ayayna umradii ku dhamaanaysaa ay ku dhameystirmaysaa.